hadduu madaxweynaha iyo ogolaado waxaan u malaynayaa sidaan ku sheegay luuqadda ingiriiska madaxda meeshan fadhido raggan prime minister ahaan jiray oo badi saaxiibyaasha ah madaxweyne Deni oo maanta aan u imaanay caleemasaarkiisa iyo madaxdan kale qof kasta ilaahay mar buu fursad ku siin fursada waxa la rabaa inaan noqoto mid aan ugu shaqeyno ninkoo shacabka uu ilaahay loo baryaayo sidii midnimadii iyo horumarkii iyo jiritaankii ummadeena iyo wadankeena Soomaaliya sidii loo gaari lahaa waa mas'uuliyad qof kasta saaran madaxweyne xasan kilima saarno madaxweyne Deni kilima saarno madaxweyne qoorqoor kilima saarno madaxweyne lafta galeen kilima saarno iyo madaxweynayaasha kale ku dima saarno iyo prime ministeryaasha iyo xildhibaaniinta waa inay bulshada gabigeeda haddana Soomaalida midnimadeeda wax yar way isku didaan laakiin midnimada usbuucyahan badan aad isku dideen waxa la rabaa midnimada haddana in la isku dido si loola dagaali lahaa al-shabaab midnimadaas ahda bariyahan dambe la muujiyay waxa la rabaa sidii dawladnimo dib loogu soo celin lahaa in lagu midoobo haddii la midoobo kuwa qurbaha jiraan kuwa wadamada jiraanka joogan oo walaalihiin aan ka mid ahay iyo kuwa wadanka degan oo hoggaanka hayaan haddii la midoobo wax ilaahayna la bariyo wax la qaban karin ma jiro marka waxaan rabaa inaan niisho laakiin waxa jiray meesha dibka jiro waxa weeyo waxa la kala bixin lahaa shakhsigii iyo qarankii waxa la sheegay marka laba nin safar isku raaceen هذا يفسحنا يفسرنا صحنا يفسرنا هذا يفسرتينا وحبك مقبي مركان أبو بدن هاي بيلبان سكترن قريني نمبر كي تويتر كي فيسبوك يقاضي لبنا سفر كعين سيو سعودي ويقع جودين صاحبي هايين من نمي قبين ولا هايين مريقا جودنا أصدق منها مريقا جيت كلي برده أو كبحو ميرها مارت حبت أو دير بريا قلت قريها نيروبي والقو يا حفظها والقصة بها جيت كا وديري هاي سومالي ذا مقعيب بدل بحسها أنك صوبالي سجيو حمو بحنا برده مركا مال قبصان مره تقال فوليس جيت كبي مادان وحي أركان مرب أي مارة الشنة كر أي كل جسم مركا واتا شدين حيرا مركا راشين واحد نوقدو مرب كامتشير سلام كفولا نكي قابنا حير ولنوان قابنا على ديره يو يساعي ماشي فول نكي ماشي وافولا markuu meeshii fuulay wuxuu ku bilaabay inuu cunitaanka waxay inuu soo dego baashi soo dejiyo isla cuno oo tolkooda inuu ku dharko ninkii meeshii fuulay baashi buu cunitaanka ka bilaabay markuu taqriiban 20 daqiiqo u wado ninkii wuxuu yiri maxaan isku ogeeyay ma soo degtido oo soo dejisad ninkii wuxuu yiri markaan geedkaas noocan aan fuulo oo hadana malab aan afka geliyo ana lama hadlo أري ليه ما هذلو مير كمركب حوير واحد سكوين كبح كي كلا مركب إن أغلب بدنا هو فكري والمحاتين أساسا ده باشا مركب ما شاء سانكو علاوي روح قلتي نيجي كانوا حويري أساس ما يحبس أساسا أنا حود دونتي ينبضوا دونتي أساسا أنا جيت كيبو قبل لا بي جويس كي نكرو سارين كي ما حويري ورمح جيت كيبو جويني أنا نحوي مركي أنبأ عن عنتا كله أو أن جيت جوينايو أنا نحوي لك وحام مخش هذا حنو مرينا يا سوماليا تيبا هيستا تي يا هيستا ساقو حن فيرنا فيديو أو مركي 20 دورشيتا دودن بيسي ما دخل بركود ويفريان أجي برلمان كو خد بيناين نينكي خطبته أو فعنا أجي ساق فيري وحوها مدحونا يقرأ اللي هو برايم مينستر علي خير
arrimihii la sheegay waxaa ka mid ahaa ku kasta uu yidhi haddii la ii doorto dastuurka waan dhammayn waqtigeyga sasabayn oo commitment Kenya waxaa leedahay manifesto bariya waa arteen maxkamadda ay saxayna waxaan isku haynaa wixii dadka Kenya u sheegnay oo ay noogu codeeyeen ee maxkamaddu waxay leedahay lama sameyn karo waxaan anahay andakii shacabka dhexdana lama geli karo maxkamadda hadda bariyan dagaal ku bilaawday waa baqay president Ruto marka sidii nimankii geedka fuuleen oo midna uu xagga dantiisa ku fiiriyo kuna uu yiri aan goyni yaan qonin aan isku dulqaadano aan midowno aan noqono dad ma artay dad dalkooda iyo diintooda iyo ummadooda u danayaan marka insha Allah madaxweyne Deeri waad mahadsan tahay saaxib dheer bananiyadnahay adii iyo Ilyas ilaa xilka idin fududeeyo garowe maanta ay ugu horeysay wala magaalo la yaaba maanta safarka hore uu geeyay dekada ee boorku iga qaaday muusoo celi magaalada laakiin maanta magaalada maada marka reer garowe waxaan leenahay iyo madaxdii kula istaagtay hambalyo